وأبو مرقاسان aabbo marqaasan albaabka dhibi kusoo garaacay أتكاتا hooyo markaa ayaa meelahaa soo marmarta oo hadday khudaar ka shaqaynayso hadday sabaayad intii dubto saribada la tegayso marba wax nagu koriso hooyo adigu guriga quutliyomkeeda keenta هي cabdiqaadir oo 12 sano markaan soo gaadhay waxaan go'aansaday inaan hooyaday la shaqeeyo garab istaago carruurteedu markaa waxba ma bartaan leanno noloshan waxaan hooyaday kasoo shaqaynaysa nolosheeda keliyaatay ku filan tahay هي oo martabada la yiraahdo maqadaama dhergaan hadday waqti helaan ama 2 waqti helaan 3 waqti aanay u dhamaystirmin هي waxbarashooyinka wadankiina waxbarasho firiya ma jirtee lacagtaadaad bixinaysaa jeebkaaga isticmaalaysa marka ma aysan awoodin inay waxbarashana geyso هي 12 sano markaan soo gaadhay waxaan bilaabay inaan la shaqeeyo hooyo inan waxaa jirta marka aniga iga weyn oo hooyaday oday kale ay u dhashay oo la qabo magaalada dhinac ka degan هي markii horena anaga nalamay joogin oo gurigan danyarka iyo waxaan markay soo qaangaadhay iyadu way ka khashaafi jirto xaafadaha ehelkayaga ah ee xoogaa yar ladan bay la joogi jirtay هي halkaasaa laga guursaday magaaladay degan tahay marka marmar bay noo timaadana soo booqataa laakiin qof markii hore gurigana ka tirsan may ahayn qof xoogaa yar dabeecad qallafsana way tahay هي 12 sano markaan soo gaadhay waxaan go'aansaday inaan hooyo la shaqeeyo inaan habeenkii markay kacdo la kaco inaan sabaayada la duubo khudaarta la qaado lasoo dhigdhigo hadhow lasoo rawaxiyo guriga carruurta la ogaado gurigan carruurta markaa waxaan kasii jeclaa inaan la shaqeeyo waxaan raadiyaa shaqooyin meelaha inaan shaqo ka raadsado waxaan tagaa iskuulada waxaan dhahaa masaxaadi siiya hoteeladan tagaa masaxaadi siiya waxaasoo dhan weji baa lagu bixiyaa cabdiqaadir waxaan hooyo meelaha daba ordaba 14 sano halkanay sheekadu ka bilaabmaysaa 14 sano maalintaa soo gaadhay فاطمة أفريتهم ما ودعفتها ma dhaafay 15 jir baan ahay sanad baan اللي بدأ نحوه فاطمة هي cabdiqaadir 15 baa jira igu qarxina 14 sano markaan soo gaadhay ayaa walaashay hooyaday maalin u timi waxay tiri hooyo gabadhan nin baan usoo helay islaan dumaashiday ah oo qurbaha ka timi ayaa inan ay wadato guur u raadinaysa waxa laga yaabaa inay dhoofto waxa laga yaabaa noloshiina inay wax ka bedesho waxa laga yaabaa markaa gabadha waa inaan wiilkaas siina هي hooyo way ku raacday oo waxaa jira waalidka qaar ka fikira hanti laakiin aan ka fikirin awlaadooda hooyo way ku raacday waxay tiri bilow tan yara kula shaqaysaa firfircooni hadday meel xoogaa yar duxaysa ay kuu gasho ama reer ladan ay kuu gasho noloshiina waxbaa ka bedelmayo kolay wuxuun idinka caawiso هي cabdiqaadir oo hooyay gabadhii way ku heshiiyeen anigu maan jeclayn markaa guur inaan guursado guur ku degdego waxaan jeclaa inaan shaqo raadiyo inaan la shaqeeyo xitaa haddii ka fursan weyda inaan xaafad usoo shaqeeyo hooyada garab istaago cabdiqaadir oo inantii iyo hooyaday hareeraha iga fadhiisteen waxay ku yiraahdeen waa reer qurbaha ka yimi lacala inay ku dhoofiyaan inaad nolosheeda wax ka bedesho inaad reer ka caawiso inaad u noqoto ilaahay markuu saaqad kula doonayo soomaaliyaad ka tahay kuma dhaho marka madax isugu tuur guurka haba ka hadlinba هي ninka la siinaya ma arag dumaashideed ma aqaani maan arag xagee degan yihiin xagee joogaan suu u eegyahay ma odayba ma qaar saraa ma qof xanuunsanaya ma garanayo أعوذ بالله من وجهنا هبلو نين أنا أركن للسيارة ما يدك وجهنا كون يفسق على كنا بقول وكوجهنا ترى واقرته cabdiqaadir waxa dhacday hooyaday markay walaashiisa ay ugu tiri hooyaday ii tustay inaan noloshooda wax ka bedelayo inaan iyaga caawinayo inaan iyaga dantooda u gelayo midinka dantiinaan u gelayaa baan ku idhi haabay ku dhex haye baan ku idhi cabdiqaadir oo reerkii way ku noqotay waxay tiri anaa gabadh idiin haya walaashay baan idin siinayaa waana laydin siiyey inankana walaashay baad guurinaysaa islaantii haye bay tiri maalintii dambe islaan sidato boorso weyn isku jiidaysaa guriga noo timiyona soo booqaatayo xaafada jaarka fadhi yar laga soo qaatayo fadhigi yaraabaa loo dhigayo sharaab baa dukaanka laga soo amahday anaan lacagtiisaba hayno islaantii lasoo fadhiisiyo islaantii hadday noo timi jambigeyga saa fadhiisto laysoo yar labisay laysoo yar dhaldhalaaliyo laysoo ag fadhiisiyey ma gabadhan ahaa maasha allah iyo barasho wanaagsan cabaar arki dhashay kasto inankaygu waa libaax
inankaygu waa aqoon-yahan inankaygu wadanka aanu ka nimiba caan buu ka ahaa inankaygu hadalka ay soo qaadaba inankaygu cabdiqaadir royal buu u eegyahay inankaygu timo jilicsan buu leeyahay inankaygu hadda waa ma jiran ayuunba jira cabdiqaadirow inankii xayeysiis bay islaantii dhac ku siisay hooyaday way la dhacsan tahay anigu laakiin wadnuhu wuxuu leeyahay go waxba jirkaygu waxbuu diidaya haye ma u malaynaysaa inankeedaas inuu sida ay sheegaysa tahay la ila maaha ku soco jirkaygani aniga waxbuu diidaya markay baxaysay bay bogos yar ii dhiibtay markaa bogoska waxaa ku jira lacag $1 bogos yar bay ii dhiibtay markay baxaysay igu salaantay waa salaanta maanta kugu soo salaamay intanina oo maca salaama oo labada dhaban iga sii dhunkatay salaantii iska baxday oo lasii dhaweeyo albaabka hore lagaga soo hariyo guriga aan deganahay waa iska sandaqado ood kusoo wareegsan oo albaabka yar jiingad yar baa noogu xidhan oo albaabka laga saariyo salaantii iska tagtay oo gaari kala jiidin boodato gaarigeeda iska raacday kartoonkii maan furin wuxuu ku jiray gebigeygu horta anigu si baan u saaqnaa hooyadii baan u dhiibay hooyaa furtay lacag $1 maasha allah dee reer danyar ahaayo aan heli jirinba bishoo dhanba $100 aanay soo geli jirin hal mar markay $100 arkeen xaafadii way farxeen oo maasha allah caruurtii baa kaba looga soo iibiyo dhar looga soo iibiyo guriga raashin lasoo dhigayo reerka wax weyn bay u qabatay $1,000 cabdiqaadir oo markaan arkay hooyadayo aad u sii farxday waxaan go'aansaday thank you for your subscribe guys dadka subscribe ka noo saaraya aad u mahadsantiin haye markaan arkay hooyaday inay aad ugu faraxsan tahay happy u tahay waxaan go'aansaday inaan hooyaday waxa ay ku faraxsan tahay farxadeedan maalintii u horeysay haddii $100 la helay hadhowna wax ka badanoo inaan ahayba gabadhii reerkanba wax ka bedeli lahayd maasha allah tabaarakallah haye cabdiqaadir meherkaygii baa loo soo fadhiistay weli ninkii maan arag meherkaygii baa loo soo fadhiistayoo ma ogolaatay waan ogolaadayo meherka qabso oo walaashii waa soo hadlaysa markaa meherka lacag fiican qabso meherkii baa hooyaday ii sheegtay meherkii baan qabsadayo aroos meherkii baa laga dhigay weli maan arag maantoo kale markii meherkii dhacay maalintii ku 3 ahayna gelbiskaygii bay ahayd gurigii baan leegeeyey gelbiska markaa anigoo keliya taa guriga layga gelbiyey hoteel baa laygeeyey hoteelkii baa cabaarna loo ku tumay buraanbur iyo xoogaabaa weli maan arag nin nooc maa soo socda idinla tahay nin xanuunsan baa soo socda waa qosolka nin caadiya soo socda waa ohinta walee faadimo nin caadiyan loo keenin ku soco cabdiqaadir oo sawirkiisa xitaa qofkan aan guursanayo sawirkiisa xitaa maan arag adkaata arooskii hoteelkiiba arooskiina loogu soo tumayo xoogaa farxad qalbigana aan ka ololayo wejigana aan ka muujinayo inaan faraxsanahayo ayaa arooskii halkii hoteelkii kasoo dhacay hoteelkii halkiina la kasoo kaxeeyo guri weyn bay islaantu deganaydoo ay soo dhisatayo gurigii baa nala keenay gurigii markii nala keenay qol say tahay loo sharaxay oo hurdada la dhigay fadhiga dhex yaala dhinac kuraas baa taala dhinac miis yaroo loogu talagalay in 2 qof ay kafeyga oo kale ku cabaan qolkooda dhexdooda halkaasoo kale tv baa ku rakiban qoldii adigu si caalamiya loo sharaxay ayaa la dhexgay oo kii hurdada waxaasoo dhan fadhiga yar miiska yar 2 kafee loogu talagalay sariirta wuxuu waa kii hurdada cidina ma dhex joogto cabdiqaadir acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bal inaan kasta waxaa sawirataa adoo aroosa oo qolkii hurdada lagu geeyey ilaa hadda ninkii aanad arkin ma oday baa kuu soo gelaya ma qof caadiya ma qof waalan ma rooyal acuuduka billah cabsi waa cabdiqaadir oo qolkii maasha allah dajiinkad yar baan deganayno furaashyo xaleef noqday duugoobay baan ku seexan jirnayo weligeyba mabaan aragba noloshan weligeyba maan arag qolkii baan saa u daawado maasha allah iyo islaantii baa hooyo halkan samee hooyo maryaha iska bixi hooyo mariinkayga iyo maryahan sidedka iyo duruucda oo sided ay iyo kuwii baatiyada iyo sided ay iyo xijaabada iyo toobabka iyo cabaayadaha iyo islaanta keentay anagu shay maanaa soo iibsan boorso dhan bay keentay kabadiinta sariirta uu buuxaa maxaa uunsiya maxaa cadara maxaa kareema maxaa qolkaas hilib dad waxaan ahayn way dhex yaalaan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim adkaatay
Hey. cabdiqaadir hooyo dharkan inta iiga soo saartay sid iiga soo saartay iska bixi hooyo taaj iska bixi sidkaagan iska xidho qolku wuxuu leeyahay qeyb suuliya oo dambe suuligii baan galay gabadhii waxay la gashay suuligu si cade gurigu wuxuu u dhisan yahay dhismihiisa xitaa waxaa laga soo maanguuriyey guryahan de qurbaha oo si suuligan unbaa ah oo gudaha ku dhisan markaa shaawarkii leh suuli shaawarkii leh baafkii ku dhex yaallo oo dhinaca suuligii fadhiga oo loogu talagalay inaan banaankaba looga bixin guriga suuligii bay ila gashay inantii malxiisad ahayd toobkii taashkii baan iska siiba diracaygii iyo sidkaygii baan xidhay waxaan makeupkii baan iska maydhay halkii intaan ku jiray islaantii boorsadii intay furtay kabadhkii saa ugu gurtay dharkaygan ay halkaa marka maraysa su-aal baan ku weydiinayaa ilan waa tana qolkii qaniyada lagu geeyey waa tana lagu sii labis maskaxdaadu maxay isweydiinaysaa marka nuur cismaan thank you my brother aad baa umahadsantay walaal dadka subscribe-ka noo saaraya aadaan guys umahadsantiin thank you guys ku soco cabdiqaadir su-aal baad weydiinaysa waad la laabatay nuur baa kaa jiray maadaama lagu sii diyaariyey maxaa maskaxdaada ku wareegaydi ila qofka waxba isweydiinaya mogta cabdiqaadir waxaas leeyahay qof nooceeya baa kuu soo socda islaanta mayadaa ku soo guursatay mise nin baa ku guursaday ilaa hadda ma garanayo yaa i guursaday wax shoog oo kaleana uu igu xidhan yaho malxiisadayda xitaa lama hadlayo acuudu billaahi min ashaytaani rajiim waxa dhacday markaa cabdiqaadirow shoog baxoogaa xitaa malxiisadaydii ila socotay laa hadli maayo la sheekaysan maayo weydiin maayo iyadaa kolba ila walaa maxaa khaldan laakiin anigu xitaa weydiin maayo waxaan ahay qof shoog ku xidhan yahay oo kale islaantii intaan suuliga ku jirnay kabadhkiiba maryahayga saa ugu gurtay toobabkii dhinac dhigtay xijaabadii dhinac dhigto kuwii guriga lagu joogay dhinac dhigto sididkii xaragada dhinac dhigtayo xaggan sookee jaakadaha in la sudan loogu talagalay waxaa wada sudan maryihii hurdada bijaamaadkii hurdada loogu talagalay oo nooc ah ayaa wada sudan acuudu billaahi min ashaytaani rajiim intaynu ninka ka arkayno samuurada adkaata bis ka dhiga ninka ilaa intaynu arkayno inuu nafisayno adkaata bis samuurada ku soco waaba cabsiye qaanadan hoose waxay ku gurtay alaabtii dumarkee hoose daakhiligii bay ku gurtay saa u ratibtay qolaba qoladii la jaadka ahayd bay saa u dhigtay cabdiqaadir oo dhinacan kalena dhar nin baa ku jira ha ahaatee suuligii markaan kasoo baxno sidkii soo xidhanayo toobkii gabadhii ay sido ayay ku tiri hooya khaanada kabadhkaagi waa kan dharkii waan kuu laalaabay islaanta xooggay kaga dartay in tirada toobka iska soo bedelayay ayay kabadhkii sharaxday hooyo waa kan qolkaagii waa kan igu soo dhawow kabadhkan waa kan dharkaagii halkan xijaabadii baan dhigay halkan cabaayadii baan dhigay halkan toobabkii baan dhigay halkan sididkii halkan duruucdii guriga maryahana hooyo waa maryihii hurdada guriga waa gurigaagii xaajigaagii uu soo socdaa marba u dhowbu kuu imanayaa dhoomwari ii fadhiiso inanta malxiisadu way iska tegaysaa soo maaha markaasaan kulmay way iska joogsaa may guriga hablaha jooga inan baa ka shaqeyso inan kalaa joogto hablaa joogo hablahaygiibaa joogo guriga ha u werweri hadday adkaatayba maxiisadu waa baxda wey iyada gaari baa loo keenayaa markay cashayso malxiisadu markay cashayso ha iska baxdo toobka nataashkana hore ha u qaado koofeedkii ha geyso iyadu beri looma baahne iyo kabihii taashkii kabii oo lasoo diray saamiye ciise silaalin dad daraaf garanayso nuur walaa thank you aad umahadsan tahay cabdiqaadir waxa dhacday halkaa markay marayso islaantii oon leeyahay malxiisadii maad iga tegaysaa de iyadun baaban garanaya dadkan ma garanaya maad iga tegaysaa ay leedahay de maxaan sameeya sododaa tiri kuma celin karayo hadal oo ma odhan karayo no way iga tegi mayso oo anigii baaba sii qof de yar ahoo baqayso oo 14 sano uun markaa ahoo guur weligeed soo arago xitaa weligay aanan nin lasoo sheekaysan oon jacayl soo samay islaantii way baxdayo cabdiqaadir miiskii yaraa labada qof loogu talagalay baa cashana loo soo dhigay laba qof oo anigii malxiisadii uun weli malxiisadu markay cashaysay baxaysaa bay tiri miiskii waxa naloo soo dhigay casho naloo kusoo sharaxay dhowr nooc ah cashadii markii naloo soo dhigo 2 koob oo sharaaba naloo soo dhigayo talaakad yaro qurux badan oo koobab yaro qurux badan wadata naloo soo dhigayo
biyihii naloo soo dhigayoo cashada gacmaha ay ku cuni mayna 2 qaadaana lagu soo ridayay 2 fargeeto. Hey, thank you, Marian Ron, the one and only. Hey. Marian Ron walaashay qaali thank you. Cabdiqaadirow waxa dhacday Faadima carar kulaha gaariga igu soo dirtay carar. Sheekadii weyn bay keentay. Ku soco. Amalay soo dhow. Cashadii baan naloo soo dhigayo. Aniga inantii cashadii baan cunnay. Anigu markaa casho ma cuni karayo. Inantu habeenka aroosku waa habeenka ugu yar adag, waa habeenka ugu farxadda badan. Haddana si kale marka loo eego waa habeenka ugu adag nolosheeda oo nolol cusub aanay garanayn bay gashay. Cuntada markaa kaa dhaadhici mayso ama farxad u cuni waa ama naxdin u cuni waayo cuntada ma cuni karaysid. Cuntadii anigu ma cunayo laakiin inantii malxiisada si fiican bay u cuntay. Sharaabkii baan haaf yar ka cabay dar Ilaahay baan u dhirigsanahay. Maanta oo dhanna waxba jirkeygu diidanayo siba jirkeygu u dubaaxinayo. Qadadii wax yar baan ka taataabtay. Neef gurigeyga lagu qalayo saaka waxba yar beer yar baa laga keenayo wax yar baan ka taataabtay. Waxba maan cunin haddana waan dhirigsanahay. Laana calool cabsanaysa waxba ma cunto. Inantii malxiisada ahayd iyadoo iska cashaysayo inantii markay cashaysay islaantii bacayro qurux badan bay halkan ugu keentay inantii hadiyada waxay ku tiri hadiyadaasaan kuu keenay maadaama inantii noo soo gudbisay maadaama saaxiibadeed tahay maadaama malxiisadeedii tahay intaa ka badanna waad u qalantaa arooskii iyo fujaanadii iyo wixiina waa la isu soo raaciyay waxba dib la isugu soo noqon maayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إمسا سيدة عبسانة ودنو دقلي ودنها يدقلي markaa 2 xabo hilib oo degdeg loo xiray iyo xabad uunsi cadara baa la soo xiray sabiibi waxa ma rabna bay tiri fujaanadii wax alaabad noo soo raacaysaana ma jirto